بسم الله الرحمن الرحيم داود يال تاريخ maanta waa 23 bishii 6 wararka caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dhaxal sugihii dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman oo loo yaqaan MBS oo boqosho rasmi ah ku jooga dalka Turkiga ee walaalaha yihiin ayaa halka wax ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Madaxweynaha dowladda Turkiga ayaa wacd ku maray in xiriir wanaagsan oo la yeelan doono dowladda Sacuudi Carabiya xiriirkii horena uu soo celin doono. dabadeed markuu xiriirku xumaaday dalkii Shamaal Khashoggi wariyay caanka ah ee u shaqayn jiray Washington Post daawada halkan nagala socotaan barta YouTube kulana iyo Calanston 24 Post boqorka bin Salman ayaa sheegay inuu lacag fara badan ku maalgelin doono dalkaas oo gaaraysa billions dollars kuwaas oo lagu maalgelin doono xagga difaaca aqoonta tiknoolajiyadda iyo beeraha. madaxweynaha Erdogan madaxweynaha Turkiga ayaa wacd ku maray inuu ka caawin doono la dagaalanka argagixisada, kor u qaadida tababarida ciidamada, tiknoolajiyadda, dhismaha difaaca adag oo ciidan ee dalka ay walaalaha yihiin Sacuudi Carabiya. Dhanka kale daawadayaal dowladda Russia ayaa ku soo bandhigtay Baltica maraakiib aad u fara badan oo dowladda military ay ku sameynayeen badda Baltica halkaas oo la arkayay maraakiibtaas ay ridayeen gantaalada dhexe, kuwa ridada dheer, kuwa ridada gaaban iyo kuwa qaaradaha iskaga guushaba. daawadayaal sida la socoteen dagaalku wuxuu ku socdaa Russia iyo Ukraine laakiin hadda wajh kale yeeshay magaalada la yiraahdo Kaliningrad ee dalka Russia dhacda dhinaca Baltica ee xuduudda ay dhacdo Lithuania. magaaladaas waxaa ku xaniman tareen maaragtay fara badan oo wada sahay isku jirta shidaal iyo cunto. tareenadaas waxay ka yimaadeen dalka Russia waxay dhex marin lahaayeen dalka yarka oo la yiraahdo Lithuania. waa dal yar ah oo marka hore ka mid ahaan jiray midowga Sovieti kuna biiray midowga Yurub iyo NATO. way joojiyeen wixii transit ah oo dhex marayay waxaan dhaheen waxa laaba noo soo dhex mari karo habeeraatee ma ogolin. sidaa daraadeed Lithuania arrinkaas ay ku degdegtay. afayeen u hadlay Russian Security Council-ka secretary-ga ninka xogeyaha qolada qaabilsan ee amniga dalkaas Nikolai waxa la yiraahdaa Patrushev. Nicholas wuxuu sheegay inay tilaabo qaadan doonaan xilliga soke iyo xilliga fogba haddii Lithuania ay arrinka ka noqon weydo inay bologoreyso wixii transit ku ahaa. heshiisba hore noo dhexeeyey ayaa leedahay dowladda Russia iyo ninkan u hadlay qolada amniga qaabilsan. Russia wadankan waa wadan yara 24 saac gudahood buu ku qabsan karaa laakiin qodob baa wuxuu dhigaya Article 5 la yiraahdo wadanka NATO ka mid ah in lagu soo duulo NATO dhan wadanka ma hayraado ama weynaado NATO dagaalku soo galayso waa difaacaysa. marka laakiin waxay ku diraan Russianka daba dhigan ama gordhow ama xilli soke ama xilli fog. marka ganacsigii iyo hadda dagaalku sii maray marka hore xabaddu waxay ahayd kafool laakiin hadda waxa la isku soo tagay gacanta. dowladaha yarka oo daciifka baabuurtooda iyo diyaaradahooda maraakiibtooda la qabsan jiray. hadda dowladda Russia oo weyneed in Lithuania oo wadan yara oo Djibouti kala in ay joojiso raashinkiisii, shidaalkiisii, ganacsigiisii, tareenadiisii ay xanibto waa wax aad loola fajaco daawadayaal. waa wax aad loola yaabo waa waxaan caqliga gelin karin caqliga ka weyn. dagaalka hadda ganacsigu maraya raashinkii uu galay, shidaalkii iyo badeecadihii uu galay waa ka tagtay xabadda kafool ahayd. daawadayaal waxaa nooga baratay warar ku salaysan xaqiiqda meel walba joogtaana hadda jeer waxaan soo gudbinaynaa warar ku salaysan xaqiiqda.